iyadoo dhawaanuna ay ahayd gabi ahaanba markii uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodku qaar ka mid ah gobolada dalkan Soomaaliland ayaa haddaba maanta waxa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu deegaana ka mid ah gobolkan Awdal cudurka shubanbiyoodku si rasmi ah ugu dhawaaqay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal iyo maamulka gobolkan Awdal. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Axmed Aadan Buuxan oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolkan Awdal sheegana tirada uu geeriyootay cudurkan shubanbiyoodka iyo inta uu soo ritay waqti xaadirkani. waxaanu kaga wada hadlaynay shubanbiyoodka xoog badan ee ka dilaacay dalka oo dhan ba inuu soo gaaray magaalada Boorama gaar ahaan gobolka Awdal dhamaantiiba gaar ahaan wajahada dila wixii ka shisheeyay ilaa qulujeed baa imika gacanta ku haynaa intaasan ognahay inta uu soo gaaray riboodka aan hayno ilaa imikadan u soo dhacay na soo gaarina xawaas 266 qof ay ahaayeen 766 bay ahaayeen dhimashaduna waa 6 geestiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay sidoo wasaaradda caafimaadka ee gobolkan Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse Geele sheegayna qaabka uu la tacaalaysa wasaaradda caafimaadku cudurka shubanbiyoodka waxa weeyaan waa maalin aanu u qorsheynay ama aanu asteynay inay noqoto maalin qayladaaneed qayladhaantaas oo aan ka dirayno shubanbiyoodka maalmahan u dambeeyay soo kordhay kaasoo runtii aad moodo inuu xawli sidii hore si ka daran u socdo taasoo looga baahan yahay bulshada iyo waxgaradka kaleba haddana anigu wasaaradda caafimaadka naybaqaan u dirayna ay tahay inay ka digtoonaadaan oo ka taxadiraan hadba cidda oo asiibo xanuunka shubanbiyoodku sidii looga hortagi lahaa annagu markasta waxaan u heelanahay ka wasaaradda caafimaad ahaan sidii dadka loo baxnaanin lahaa looga hortagi lahaa xanuunkan sidii u fidi lahaa iyo aafada inta ay leegtahay sidii loo xakameyn lahaa waxa weeyaan dadka la keenay meelaha laga keenayo gobolka oo dhan weeyaan gaar ahaan imika deegaanada ugu badan ee laga keenay waxa kamid ah deegaanada magaalo cad ilaa iyo qulujeed ilaa dila eriyooyinka weeyaan waxaad si moodaa inuu xanuunka magaalada soo gal geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay xogayaha gobolkan Awdal Mustafa Duudu iyo barasaabka xigeenka gobolkan Awdal ahna ku simaa barasaabka gobolka Axmed Diiriye Cabdillaahi waxaanay tibaaxeen isbitaalkii markaan nimidnay isbitaalku wuxuu yiri wax adeega يعني واحد دواء أو هناي مجرته ما أنت واحد دارين هي كلنا كينني من بقى قدرنا لمان بالشوين تقبل كأوضل إن أتكلم حضان دتكين الناس إن شاء الله تعالى وقف كستبوحه يفرق وقعه أو دتكها واحد أذيق لو قوانا يدوينكي أنا بحنا هدول هي قدر إن شاء الله تعالى واحد محور هاي إلا ما أنت أنا هوش يدي كترنا سيد الله حكمين لا حنون كشو بيوتك wasaaradii wasiirka caafimaadka oo inoo imaadana hadii alla idmo bari wixii ka dambeeya waanan muxuu ahaay hawshaana waxa weeye in laga wada qayb qaato saxaafadana waxaan ka codsanaynaa qaybteeda qaadato xaggii wacyigelinta ay ka qayb qaataan waa runtii waa afaqaran waxay u baahan tahay in laga wada qayb qaato oo runtii u baahan sidii looga taxadari lahaa xanuunka shubanbiyoodka runtii inuu faafo isku soo wada duuba xaaladda shubanbiyoodka ayaa noqonaysa mid maalinba maalinta ka dambaysa faraha ka sii baxaysa Xuseen Ataye Chama Television caalamiga Universal TV magaalada Boorama.